Mareykanka ayaa si adag uga hor yimid cusboonaysiinta maamulka Israa'iil ee ku aadan in ciidamadeedu ay guluf buuxa ku qaadi doonaan deegaanka Rafax ee koonfurta marinka Gaza. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Matthew Miller ayaa waxaan la aqbali karin ku tilmaamay in halis la geliyo nolosha in ka badan 1.4 milyan oo Falastiiniyiin ah oo horaan ku barakacay deegaanka Rafax ee dhaca xadka Gaza iyo Masar. Dadkan intooda badan ka soo cararay duqeymaha baahsan ee Israa'iil ka wada koonfurta iyo bartamaha Gaza ayaa isdulsaar ku ah deegaan ku yaala cirifka koonfureed ee marinka Gaza. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa Israa'iil uga digay inay guluf ballaaran ku qaado Rafax oo ah goobtii ugu dambeysay oo shacabka Falastiiniyiinta ay gabaadsanayaan. Si cad ayaan ugu sheegaynaa in Israa'iil aan rumaysannahay in duulaan militari oo buuxa oo lagu qaado Rafax uu saameyn weyn ku yeelan doono dadka rayidka ah iyo inuu ugu dambeyntii dhaawici doono ammaanka Israa'iil, ayuu yidhi afhayeenka. Afhayeenka ayaa Israa'iil ku adkeeyey inay ka laabato howlgalka la qorsheeyey ee ka dhanka ah dhulka ay haatan ku sugan yihiin inta badan dadka reer Gaza. Hadalka Matthew Miller ayaa ka dambeeyey kadib markii ra'iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu uu ku celiyey in ciidamada Israa'iil howlgal dhinaca dhulka ah ka bilaabayaan deegaanka Rafax ee jiinta koonfureed ee marinka Gaza. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in la muddeeyay wakhtiga uu bilaabanayo howlgalka dhinaca dhulka ah ee Xamaas lagaga saarayo sida uu yidhi Rafax. Sida uu sheegay in howlgalka dhulka isku raranka ah uu muhiim u yahay burburinta xoogagga ururka Xamaas. Si aynu Xamaas uga adkaano, waxaan u baahannahay inaan weerarno Rafax iyo ciribtirka guutooyinka argagixisada ee ku sugan. Wayna dhici doontaa. Waxaa jirta taariikh la muddeeyay oo howlgalka la fulin doono, ayuu yidhi Netanyahu, inkastoo aanu kala cadaynin wakhtiga saxda ah ee howlgalku bilaabmi doono. Netanyahu ayaa iskala kulmaya xisbiyada isbahaysiga la xukuumaddiisa kuwa uu ka dalbanaya inaan laga tanaasulin weerarka Rafax. Wasiirka amniga Israa'iil Itamar ahna hogaamiyaha xisbiga Otzmas ayaa ku hanjabay in taageerada kala laaban doonaan Netanyahu haddii ayna ciidamada guluf dhinaca dhulka ku qaadan Rafax. Xukuumadda Netanyahu ayay muhiim u tahay taageerada xisbiyada shuraakada la xukuumaddiisa oo haddii ay taageerada kala laabtaan ay khasab ku noqon doonto in la qabto doorasho wakhtigeeda ka soo hormarta, waana tan Netanyahu ka cararayo. Mareykanka ayaa Israa'iil iyo Xamaas ku cadaadinaya inay diiradda saaraan wadahadallada dib uga bilowda magaalada Qaahira, isla markaana ay gaaraan heshiis xabad joojin oo degdeg ah si colaadda Gaza loo soo afjaro. Israa'iil oo duulaankeeda ku ballaarisa Rafax ayaa kordhin karta carada dadka gobolka iyo kuwa kale ee dunida ee ku aadan weeraradeeda Gaza oo ay ku dhinteen in ka badan 33,000 oo qof, ku dhowaad 76,000 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Hogaamiyayaasha caalamka ayaa si weyn uga hor yimid howlgalka Rafax si looga fogaado inay cirka isku shareerto xiisadda haatan ka jirta bariga dhexe. Markaad eegto in duulaankaasi uu soo dedejiyo weerarada Xuutiyiinta Yemen ee ka dhanka ah maraakiibta maraysa badda cas iyo gacanka cadmeed, xiisadda ka oogan xadka Lubnaan iyo Israa'iil iyo beegsiga lagu hayo saldhigyada ciidamada Mareykanka ee gobolka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ururka Xamaas ku booriyey inay aqbalaan hindisihii ugu dambeeyay ee dadaalada lagu dhexdhexaadinay iyaga iyo Israa'iil. Mareykanka ayaa soo jeediyey hindise ku baaqaya in wejigiisa koowaad la isla qaato xabad joojin muddo 6 toddobaad ah laguna hakiyo colaadda marinka Gaza. Xamaasna ay sii dayso 40 ka mid ah la haystayaasha Israa'iiliyiinta ee lagu hayo gudaha Gaza, iyadoo ku bedelanaysa boqolaal ka mid ah maxaabiista Falastiiniyiinta ee ku xiran xabsiyada Israa'iil oo ay ku jiraan kuwa ku xukuman dil iyo xabsi daayna. Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka oo xalay warbaahinta kula hadlay magaalada Washington ayaa Xamaas ku booriyey inay aqbasho hindisaha heshiiska. Kubadda waxay ag taallaa garsoorka Xamaas, adduunkuna wuu eegayaa waxa ay samayn doonto, ayuu yidhi wasiirka. Wasiirka ayaa intaas raaciyey Xamaas waa inay aqbashaa heshiiska xabad joojinta ee lagu sii deynayay qaar ka mid ah la haystayaasha. Xamaas waxay u baahan tahay inay aqbasho soo jeedinta cusub ee Mareykanka si ay xabad joojin uga hesho Gaza. Wadahadallada lagu dhexdhexaadinaya Israa'iil iyo Xamaas oo ka socda magaalada Qaahira, Mareykankuna uu gadaal ka riixayo, ayaa looga gol leeyahay in dhinacyadu ay isla qaataan heshiis xabad joojin degdeg ah isla markaana ay isdhaafsadaan maxaabiis fara badan. Ururka Xamaas ayaa Talaadadii sheegay in Israa'iil aysan buuxin mid ka mid ah shuruudihii ururka, ha yeeshee ay qiimeyn ku samayn doonaan soo jeedintan ay la soo wadaageen dalalka dhexdhexaadiyaasha ee Masar iyo Qatar, isla markaana ay jawaabtooda dib ugu celin doonaan Qaahira iyo Doha. Tel Aviv waxay dhankeeda sheegtay inay danaynayso in la gaaro heshiis maxaabiista la isku idaarsanayo, balse aanay diyaar u ahayn in ciidamadeeda ka baxaan Gaza dagaalkana lasoo afjaro. La taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jake Sullivan ayaa sheegay inuu la hadlay ra'iisul wasaaraha Qatar Mohammed bin Abdulrahman, kaasoo u sheegay
sheegay inaysan weli wax jawaaba ka helin dhanka Xamaasa. Waxaan ku cadaadiyey inuu jawaab ka helo Xamaas sida ugu dhaqsaha badan, ayuu yidhi Jack Silver oo warbaahinta ka soo muuqday. Si kastaba haatee, Xamaas ayaa doonaysa heshiis kasta oo lagu xaqiijinayo in si guud loo soo afjaro duqeymaha isdaba joogga ah ee Israel, in ciidamadeeda ka wada baxaan marinka Gaza, iyo in dadka la barakiciyey ay dib ugu soo laabtaan guryahooda iyo guud ahaan dhulka sida adag loo godoomiyey. Hase yeeshee, Washington ayaa qabta in xabajoojinta kumeel gaarka ay horseedi doonto in si buuxda loo soo afjaro dagaalka Gaza, maadaama ay wadahadalladu sii socon doonaan. Kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa Gaza ku haysta ugu yaraan 130 qof oo Israa'iiliyiin oo ay ku soo qafaasheen weerarkii 7 Oktoobar.